walaalayaal afartii maalmood oo la soo dhaafay waxaa socday hadallo la leeyahay shirweynaha wiye ayaa muqdisho ka dhacaya dadkii markay su'aalo ayay nagu keeneen ay leeyihiin war shirweynaha wiye xagee ka dhacaya muxuu ku saabsan yahay annaguna wax wara uma hayno haddii aynu nahay golaha hogaaminta beesha habargidir haddii shirweynaha wiye la suucayana meesha Soomaali ama muqdisho haddii la yiraahdo habargidir ka joogto waad garanaysaan midda kale waxaad la socotaan habargidir inay muddo 4 bilood 3 bilood ay fadhiday magaalo xeebeedka Hobyo kuna soo dhisatay maamul matala oo masiirkeeda ay ku aamineen oo ku matala shirarka iyo waxyaabo ka soo habargidir muraadkeeda ay ka leedahay golahaas la soo dhisay oo habargidir matalaya anigu gudoomiye ku-xigeenka baan ka ahay haddana gudoomiyaha wuu maqan yahay anaa gudoonkii hadda jooga anoo marka golihii iyo gudoonkiiba ku hadlaya waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho dhan inaan shirka la sheegay oo shirweynaha wiye lagu sheegayo aynaan wax wara aynaan u hayn wuxuu yahay aynaan la socon meel ka dhacaya aynaan ogeyn cid nagu soo wargelidan aysan jirin intaas inaan ummadda soo gaarsiino ayay weey ujeedadooda muhiimadeedu waxa weeye way jiri jirtay afar nin in inta meel shir ku qabsato ay yiraahdaan beel hebla ayaa maaragtay arintaas shirka halka ku haysata dhowr iyo 10 sano u dambeeyay waa nin magac hawiye sheegtay jiray oo hawiye jawaan ugu jiro oo hadda meesha raba ag dhigta waa jiri malaha waxa islaaya waa kii afar qof oo helo kale annagu marka arintaas hadaan hogaankii habargidirnahay lama soconno war uma hayno meel uu ka jiro lagu soo wargelin wax kala culus xagala geel wax gunti la geliyo ka weyn baa leeyahay waxa weeye hawiye shirkiisu saa uma fududa afar nin iyo 3 nin wax ku fudud yahay ma aha masiirka hawiye waa weyn waan ugu baaqayaa hawiye inuu ka tashado howlihiisa gaarka inuu ka tashado oo amnigiisa ka tashado oo gobolkiisa ka tashado oo amnigiisa ilaashado waa ugu baaqaya laakiin anu ka war uma hayno mar haddaan saxaafadii waxaan uga faa'iideysanayaa maalmaha waxaa socday colaad la hurinayo ayaa socotay muqdisho colaadu way ka soo daashay waxaan leenahay colaadaha xildhibaanada danleyda iyo dad gaar ah ay hurinayaan waxaan ka codsanayaa in la joojiyo colaad dhibkay keenayso waa naqaan walow siyaasi wax dana oo sakalahayn wax dana oo dhibaatada dadka soo gaar oo sakalahayn waxa dantiisu ay tahay inuu waxa uu doonayo helo haddii malaayiin ku dhibay wax dana soo kabale waa in malaayiin ku dhimataa wixii inuu helaa muhiim ayaana waxaan ka dhigaysay idaacada saxaafadda ka dhigaystay nin oo Siiriyaan oo jooga caasimada Faransiiska Paris ayaa hadlaya wuxuu yiri waxaan ku noolaa jirnay sida boqoradu u nool yihiin u noolaa jirnay haddana si ayuhu u nool yihiin u noolahayo waxaana loo geysay siyaasi dan leh waa mid anaga haysata 30 sano siyaasi dan leh ayaan ka hoylaan rag waxa jira carta ka soo bilaabay xilkoodii wali haysta ilaa carta xilbo haystay xildhibaan wasiir senator ayuu haystay haddana wali waa rabaa hadduu waayana adduunku inuu ugu cadaabo rabaa war dadka noocaas war ma galo war dadiyo war qax ma galno war jiingadaheena wax ma celi karaan war waxa idin ka codsanayaa dadka inaan wax iska dhaxno ayagana waxaan ka codsanaynaa kuwa sharta wada iyo kuwa dhinacaan kala saarayna ma jirto waa kuwa dan laho dhan waxaan leenahay arintaas waxa dan laho ka wada hadla cidii dan laho ka wada hadasho annagu ma ogolin dagaal ma qaadanayno mana iloobayno dadka dagaalka nagu wada waa naqaan iyo dhibaatooyinka meesha jiraan aqoonyahanaa loo jooga waxa loo jeedaa garad baa loo joogta dadka danta leh kulli liis baa laga qoraya wal maxkamadda adduunka in la suuqiyo hadaa la rabin naga daayo colaadaha iyo dagaalka dhibaatada aad ugu wadaan nin dan lahow naga daa annagu gaar ahaan hadaan habargidirnahay annagu Hobyaa ku soo heshiinay annaga isku soo cafinay ummadihii kala ku cafinay annagu hana la cafiyaan niri inaan dagaal faraha ka qaadno oo nabad u jeeysano ayaa ku soo balan golol loo soo dhistay maanta in la yiraahdo waa waray qabtoy celiyoy kiciyoy maanta kuma jirno nabad qabato waxaan kale oo leenahay nin baa la yiri waxaan la yaabay dudur aboora dhisay haddana caduuso ku dhisay haddana habeenkii oo dhisay war waxaan la yaabay kuwa habargiirta oo qayliya oo u qayliyaya ilaahu hebel wax siiyo waxana siiye war in sharti aad bilowdo oo balaayo aad wado oo ummadii aad rogto haddana aad wixii ka soo baxaad helayn
قبا يهلا حقد صعطة حاجة وصعطة ومتى بابي كلية بس كشقينيسا نمك ما أنت تاجن أو قيلية أو شير قلت نوبتي أو حل ما نادي سنة ترى يا شاجنية والدلال رجع الدلال يجي رجع الدلال كويل هبرجي كوبتشران وأنا ككورية هبرجي دي وحد لأن هاي نبض ما كوس صوب بلناي اللي ما كوس صوب بلناي صومالي إلى الدولار كوس صوب بلناي بلنكي جينا كبحن بلنكي جينا كبحن نبضي عن سوق عدني ددو ومضي عن كسوق عدني وحي عن صومالي أسوء عدني وجهنا وحوها هذا كان كوباد وحوها نحدنا إنا نبض كدقنو مدة لبض وحي هذا وجهنا إنا كبد الحمانتي شلي إن الله صاريو هذا وجه ورابوي ومضي عن سد بحسن يقعن دفنلي أن كسلان هذا بالقبطه عليو يرجو يان لجوبيني وحشان وحكم الشران رجع ساعة سبعينية ورجع صحيح وحكى صوت علي رجع واحد صوت صحيح هاي وإذا عادها كهلي وعدكوا الدوبين هاي أي على رجو يكعيه رجله وروح حاسب قالها إنه مقبة قالها أنا كوكيلة أنا قدوك كيسيئة قاله الشراء وفريا شراء أرمها كشرة مقدشوا كشري قميصنا الدبو وشريا ninkii soo raba warkaas inuu jiray in kale hotel Jawhir ayuu qamiisana ku shiraya shalana wuu ku shiray arrimaha dalka ka socdo oo ka shiraya waxa soo ku socda halkaas waxa golaha afkiisa ku hadla kara gudoonka waay waxaan saaka idii cadeynaya inaan dagaal hadaan habargirin dagaal aynaan shaqo ku lahayn cid aan ku garab seenin aysan jirin kuwa wax isku haystaan inay ka heshiiyaan wax isku haystaan waxa ay nooga sareeyaan waa waxa ay qorteen ay ku heshiiyaan intaasaan u soo jeedinaynaa inaana dagaal yeelayn inaana shir hawiyo kooxooda aan wax war u haynin dalna aynaan kala hayn intaas Soomaali weynay reer Muqdisho inta laga qabsada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh